Bismillahirrahmanirrahim. Waxa inoo socda cashir kala duwan oo ku baranayni luqadda Englishka oo ku qaadanayna buuggan iyo concept English buugga labaad practice and progress. Marka waa igala soo xiriiri doontaan Gmail ama Hotmail-kii aad doontaan iyo direct number. Marka sidaa darteed cashiradeenii taxanaha ayaa inoo socda. Marka maanta waxaan ka qaadan doonaa cashirka page 43 lesson 16. marka cashirkeeni maanta ayaan soo guda galayaa. marka note-keeni waa kasii tagaynaa. cashirkeeni waa soo guda galayaa. marka cashirkeeni maanta muxuu noqon doonaa? maanta cashirkeeni wuxuu noqon doonaa a polite request oo ah codsigii asluubta badnaa. a polite waa asluubtii, requestin waa codsigii asluubta badnaa. marka cashirkeenan waxaan ku arki doonaa shardiga furan ama cashirkan wuxuu isugu jiraa oo possible condition waxay dhahaan. possible condition cashirka condition waxa weeye waxa furan shardiga furan oo kale. macnaha haddii ay sidaa dhacdo sidaasaa dhicayso kale. haddii halkan aan joogo saasaa dhici karto, haddii halkaa aan tago saasaa dhici karto kale wey macnaha. marka a polite request waa codsigii asluubta badnaa. if you park your car, haddii you park aad backing garaysato your car gaarigaaga in the wrong place, goob qalada, a traffic policeman, nimanka nabadgelyada wadooyinka, ciidanka nabadgelyada wadooyinka will soon, isla markiiba fine way helayaan it-taas. soon isla markiiba fine way helayaan it arrintaas. marka you will be very lucky, nasiibna waad leedahay. you adiga will be very lucky, nasiib badan baad leedahay. if marka haddii he lets you go ugu saamaxo, haddii ay ku saamaxdo without a ticket. marka qof walbaa la hadlayaa. goodaa waxay ugu jirtaa qof walba u saamaxo oo jaanis hela asoon loo jarin ticketka. macnaha ticketna waxa weeye waa ganaax in lagu jiro. however si walbay tahay this does not always happen, taasi mar walba ma dhacdo. this does not always happen, taasi mar walba ma dhacdo ee mar walba waa ay qabtaan dadka traffic-ka. marka traffic police, nimanka traffic-ka ah, are sometimes mararka qaarkood very polite aad bay u akhlaaq badan yihiin during a holiday in Sweden. during maraan ku guda jiray holiday fasaxeegii in Sweden gudaheeda. I found waxaan helay this note qoraal my car oo gaarigayga lagu dhajiyay ama la suray. sir qoraalka laga hadlayaa, la aqrinayaa, qoraalka ayuu aqrinayaa. sir mudane, we welcome you our city. we welcome waan kugu soo dhaweynaynaa you adiga to our city, magaaladeena. this and no parking area, halkan maaha goob baabuurta la dhigto. you will enjoy, waadna ku raaxaysan kartaa you stay joogitaankaaga here, halkan. if you pay attention, haddii aad taxadarto to our street, wadooyinka signs calaamadaha ay leeyihiin. marka wadooyinka calaamadaha ay leeyihiin. this not is only a reminder, this ta arrintan not is only kaliya weeye a reminder, xusuusin. if you waa naga xasuusin. if you haddii receive aad hesho a request codsigan like this kan oo kala ah, you cannot violate, kuma guuldaraysan doontid to pay inaad adeecdo it codsiga. marka key structure-ka oo ah nuxurka cashirka ku jiro ama grammarka ku jiro ayaa sii gudagelin doonaa. marka key structure-ka maxaan ka aqrinayaa wey? key structure-ka waxaan ka aqrinayaa buugga, waayo qoraalka nooma wada qaadayo oo qoraalka in la wada arka ayaa shardigeenu u ahaa. marka key structure-keena waxaan kusoo qaadanay if you open the door, haddii albaabka aad furto, you will get a surprise, waxaa la kulmaysaa la yaab. study markaa baro this sentence kan bado ama jumladan baro by close attention adoo u fiirsanayo
to the words erayada in italics ee farta jiifta ku qoran marka farta jiifta waxa ku qoran oo buuggii baa soo bixinaysaan oo buuggiini waad kala soconaysaan marka buugga muxuu leeyahay if he is out hadii uu maqan yahay if hadii he is out uu maqan yahay I will call tomorrow Brian waya if it rains haduu roob daayo tomorrow biri haduu roob daayo we shall stay at home waxaan joogi doonaa guriga you will miss the train hadii aad ka dhacdo ama aad ka tago trainka if you don't hadii aad degdegin waa you will miss the train hadii aad u degdegin trainka if you don't hurry hadii aad u degdegin you will miss hadii aad seegto the trainka if you hadii aad ka tago trainka if waa hadii you don't hurry aad degdegin ka tagaya you will miss you ka tagaya the trainka waad seegi doontaa if hadii you don't hurry aadan degdegin marka special difficulties ka ayaan u gudbayaa dhowr qodob baan ka akhriyay key structure ka marka special difficulties kana waxaan ka akhriyaa buugga oo nooma saamaxayo inuu noo wada qaado halkan qoraalkeen nooma wada qaadayo oo wuxuu noqonayaa qoraal aad u dheer marka special difficulties kana waxaan ku arki doonaa words erayada often badanaa confuse la isku qado animation oo lagu wareero maxay yihiin marka erayadaas lagu weeraro halkaan ku arkaynaa buuggan ka aqrinayaa police traffic nimanka booliska traffic police are sometimes mararka qaarkood very polite waa niman asluub badan marka lane-ka 11 qoys furan 5 sadarka shanaad ayay kaga jirtaa buugga study marka baro this example tusaalooyinka the police are looking waxay fiirinayaan for him asiga ayay fiirinayaan they ayaga halkaas ayaga have not found him maysan helin they have not maysan helin find him asiga maysan helin there were police-ka everywhere meel walba there halkaas where halka goobtaas police ba very were mar walba halkaas police by close attention adoo fiirniya to the care adoo ka taxadiri doona oo ilaalin doona take care qaado of look after compare marka isgarabdig the flowing qaacidooyinka soo socda please by adoo fiirin doona attention-kaaga uu joogo to the blackboard sabuurada adoo fiirin doona marka casharadii oo ahaa special difficulties kana waan qaadanay marka casharadii su'aalaha iyo jawaabihii ayaan soo raacinaynaa mar walba cashirka marka la qaato su'aalaha iyo jawaabaha ayaa ka imaanaya marka casharadeenii imtixaanaha ahaa oo English language kan ku qaadanaynay ayaan oo sii soconayo maanta waxaan qaadanay lesson 16 page 43 lesson 16 page 43 waxaan nagala soo xiriiri doontaan Gmail iyo Hotmail kii aad doontaan marka sida darteed waa anigoo ah Maxamed Axmed Bare waxaan leeyahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh